ninka rag kaleeto Soomaaliya ku jiraan marka way ka muuqdaan haddaad baarlamaanka Kenya eegtid oo 359 legislators 33 or 34 members of parliament baa ku jiraan is a large number soddon iyo saddex ilaa soddon iyo afar wadan yihiin waliba kulli waqooyi bari kale kama imaan Mandera Wajir Garis ma ah waa qaar waxay ka yimaadeen 4 other counties oo wadanka ku yaala runtii rajana waa qabnaa in the coming elections Soomaali badan ay ka soo galaan at least 3-4 other counties ama 5 counties oo ay ku tartamaan oo Nairobi ay kamid tahay Nairobi hadda xildhibaan Soomaali way leeyihiin marka arrimaha inclusionka sida walaalkeenu sheegay Ethiopia oo kale dastuurka Kenya ay ku salaysan tahay ay ku jirtaa مثلا ودنك كينيا دستورك كينيا وحو قباهين حتى الشقادة الدولة ومدحينه مقعابايا cabinet positions هالنقطة ambassadors or judicial any appointment or state level وإن لقصة ليلة بارن number 1 ethnic community ethnic composition وإن لكو جرامش number 2 regional representation لوضع هو fundamental way it's part of the inclusiveness or constitution ka maaragta uu ku salaysan yahay waxa kale hadana jirtaa in dadka marginalized ka ama minorities ka ama women iyo youth intaba constitution ka whether it's appointment ka daytahay or state positions ama political representation labadaba at both levels national level iyo dawladaha goboleedka labadaba so that women for example 30% automatic way iyaga haysta all the even at the at the regional level youth ka wacaynkaas so whether it's the senate or the county assemblies or parliament marka were very important number 2 dhinaca waxaan ka hadlayaa marka waqooyiga meesha Soomaalida ay degan tahay dastuurkan maamulka devolutionka ama dawlad goboleedka oo 2010 ka constitutionkan uu noo keenay runtii faa'iido weyn bay Soomaalida u keentay hadda kula hadlaya out of 47 counties ka ama regions ka ee Kenya ay leedahay saddex ayaa Soomaalidu ay majority in ay haystaan maamulka oo dhan ayagu way Soomaaliya baa u badan Mandera Wajir iyo Garis laba shay baa muhiim ah one political representation and inclusion at county level were exactly the same iyo midka national ka so at county level qabaylada degan oo dhan within that county they have to be represented politically and they have to be represented